waxaan baa u jeedinayaa nabadeed dhammaan bulshaweynta Jubbaland waxaan kula dardaarmayaa nabadda ay haystaan iyo horumarka ay haystaan inay ilaaliyaan oo ay hadii beedankeeda leeyahay ay xafitaan Jubbaland baa leh horumarka iyo wixii ay gaadheen wanaaga waxa waaye inay ilaashadaan marka hore aan maaragtay kula talinaya marka xigta waxaan baa u dirayaa dawladda federaalka waxaan leeyahay Jubbaland way tashanaysaa waxaad tihiin waalidkii maamul goboleedyadatiin inaad dumisaan lama rabo inaad dhistaan baa la rabaa meeshaad maanta gaarsiisaan in kaydinku madaxda kale idinka dambaysa ay ka sii qaadaan la rabaa waxaan rabnaa inaad doorashadayada iyo hadii beedankeeda leeyahay madax banaanidayada iyo hadii beedankeeda leeyahay taladayada in loo gacan baneeyo oo aydan wax noo soo xawilin oo amni darre iyo hadii beedankeeda leeyahay iskhilaaf aydan noo soo xawilin Jubbaland taladeeda Jubbaland baa leh inaad noo deysaan baan rabnaa oo aan idinku codsanaynaa wixii la idin igmaday waxay ahayd in la soo dhiso maamul goboleedyada la soo dhiso dastuurka qabyada la soo maartay la soo dhameystiro hadii beedankeeda leeyahay amniga laga shaqeeyo khayraadka la qaybsado deeqaha caalamka la qaybsado waxaas oo dhan baa la idin igmaday ma aha kaliya inaad ku bixisaan lacag ama dhaqaale aad maamul goboleedyada ku dhisi lahaydeen inaad ku dimisaan maaha marka waxaan idinku codsanaynaa inaad ka waantoodaan Jubbaland aad faraha kala baxdaan taladeedu madax banaysaan inta ka bacdi waxaan halkan cabasho uga jeedinayaa maxay ahayday madaxweynaha iyaga mudane Axmed Maxamed Islaam anigoo ah Garaad Cali Maxamed Saleemaan oo ka tirsan dhaqanka beesha Bartire hadii beedankeeda leeyahay reer Garaad ah hadii beedankeeda leeyahay odayga Timcase iyo reer Saleemaan iyo laagmadoobe odaygoodii ah waxaan madaxweynaha cabashadayadu waxa waaye kuraastii Bartire in si cadaalad ah lagu qaybsado ayaa loo diiday 2004 ilaa hadda dawladda federaalka ah golaha xukuumadda iyo golaha baarlamaanka qoys baa haysta in jifo hoosaada baa haysata waxaa noo diido naga afduubay Ibrahim Aadan Geedi localkana sidoo kale in jifidiisa uu ku qoray oo Maxamed Axmed ah Bartire kale banaanka ku horan yahay oo u diiday حتى waxaan loo diiday inaanu guddigii doorashooyinka aan la kulano cabashadeeda aan u gudbino iyagii isaystay cabashadii ay qoranayeen meeshii Bartire loogu ballamiyay guddiga doorashooyinka waana laga kiciyay xitaa waxaan leeyahay mudane madaxweyne maamulka dawliga ada madax noogu ah anana dhaqankaanu madax kugu nahay hadii beedankeeda leeyahay waxaan rabnaa maanta ada reerka Jubbaland madax u ah inaad u garsoorto laga rabaa cadaalad inaad u samayso laga rabaa reerkii Bartire waa tashan waayay 10 jeer baan gogol dhignay waxba waa nalaga aqbalay waayay waxaana la dhahay kuraastu dhaxal waay rag baa wiilashooda ku waxday taasina sax maaha caalamka gaal iyo muslim meel kasto la joogo majority iyo minority waa lagu kala yahay majority meeshan waa nalaga yahay waa sax laakiin maaha minority wax ma laha maaha xuquuq minority xuquuq siyaasadeed waa leeyahay xuquuq deegaanna waa leeyahay waxaan rabnaa annagoo ah beelaha Bartire hadii beedankeeda saddex jifi oo walaal ah oo baa haysata kuraasi Bartire dhaxalka Bartirena Bartira iska leh waxaan rabnaa mudane madaxweyne inaad Bartire markuu isku duuban yahay wax ku tara oo adigana ku anfaca Soomaalina anfaca kumadana anfaca hadduu isagu isaysto oo kala tago waxba ma taraayo in maanta aad na soo farageliso oo noo cadaalad samayso oo maalintii bahgarisaysatay sidii aad ugu garsoortay aad noogu garsoorto maalintii bahgarisaysatay dawladda federaalka ahayd aad u garsoortay sidoo kale inaad noogu garsoortaan madaxweyne ka rabnaa cabashadaasaan qabnaa cabashadana waxa dulmigan ugu sameeyay in Aadan Geedi waay intii ku xeereedna waa naga qaban weyn intii ku xeereedna waa naga qaban weyn marka waxaan rabnaa madaxweyne arrinka inaad soo fargeliso annagoo raacayna hadii beedankeeda leeyahay wixii aad noo qaado ku qancayno oo madaxweynaha aad tahay madax meel ka sareyso la salaaxa ma jirto waxaan rabnaa madaxweyne aan ka codsanaynaa Bartire intuu tashanayo ku heshiinayo kuraasta in aad maaragtay noo xanibto oo Bartire aad soo fargeliso oo kuraasta Bartire kuumada ku soo celiso intaas aan ka codsanaynaa
haddii aan wax qalday nafya shaydaan bay ka ahaatay wixii aan saxayna ilaahay bay ka ahaatay su'aal fiican waaye geed dheer iyo geed gaaban waxaan u fuulay inaan jifida bartira qaybeesha bartira dhexdeeda inaan wax ku xalino baanu geed dheer iyo geed gaaban ba u fuulay intaasoo gogolood baan dhignay haddii badankeeda ninkii reerka horjoogaha wuxuu noqday nin jifi u ah aan xitaa maxamed axmed u ahayn xitaa ugaas u ahayn jifi u ah waxaa naloogu jawaabay gacmaha iskaga gurayna idinku xaggaad joogtaan annagaaba gacmaha iskaga gurayna kuraasta waxaad weeye adeer ha wareerine ayr meel ka jooga haddii aanu damcnayn inaan la kulanno xitaa guddigii doorashooyinka oo meeshii cabashada ay iyagu markay wax isku haysteen ay u gudbinayaan aan u gudbino oo liiskii 15 qof ahayd ee bartire laga soo qoray aanu ka mid ahayn 3 xubnood aan ku lahayn markaan meesha tagnay waa nalaga istaaji waxaan la dhahay annaga umaanaan soo ballamin idinka reer Saleemaan iyo Laagmadoobe iyo Timacase iyo umaanaan soo ballamin guddiga doorashooyinka waxaan u soo ballaminay Maxamuud Axmed marka cunsuriyadda inta la eegban lagu sameeyay waxaan rabnaa xukuumad baan leenahay dallad weyn oo hukuumadda la dhahana waa leenahay oo dhaqan leh waxaan rabnaa haddaan isxallin weynay dadka isxallin waayo walaalahooda ayay u cawdaan oo xalliya dhaqanka hukuumadda iyo madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa in la xalliyo saasay ku dhacday waa u bandhignay waxa waaye reerka ninbaa shaabadda ugaasnimada haysta ninkii wax ka qaban lahaa wuxuu leeyahay waraacday reerkaaga aniga kuguma maamulee maana reerkayga ugu maamulaysa reerkaaga aniga kuguma maamulee ma reerkayga ugu maamulaysa ninkii damca inuu wax saxo oo yiraahdo warna dadka u cadaalad samee waraa aniga sheekada ogaadeenkaad ii keentay ma aniga reerkayga ugu maamulay anigu reerkaaga kuguma maamulee marka nin qabsoomi waayay buu noqday maadaama qabsoomi waayay madax meel ka sareyso la salaaxa ma jirto madaxweynuhu isaga Jubbaland oo dhan u dhaxa cidiis qabata isaga kala saara waxaan ka codsanaynaa inuu maartay ama guddi noo saaro hukuumadaha oo dhaqanka hukuumadaha ama isagu naxaliyo haddii badankeeda leeyahay uu soo kala dhex galo oo uu u yeero cid aan ka cabanayno uu u yeero ninka aan ku cabanayno uu u yeero annagana noo yeero una wada hadal siiyo waxaan ka cabanayno u arko intaasaan madaxweynaha iyaga ka codsanaynaa xumaani ma jirto waa dawladda aan wax ka codsanaynaa dawladdeedii waaye tii annaga aan shalay soo dhisnay waaye marka haddee annaga xaq uma lehin aanu bixino haddii badankeeda leeyahay magta aan bixino nalaga qaato wixii dheefana nalaga qadiyo hadda 25 halaad oo geela oo Ibrahim Aadan Geedi jifidiisa jifoosaadiisa aan ka bixinaya la igu leeyahay oo la iga rabaa haye 25 halaad inaan ka bixiyo ugu rabaa kursigii inaan xitaa kuwanaad qorayso ugu daba qorna waa ii diiday sidee ku suura galaysaa marka in heshiisku ku suura galaya in la xaliyo oo dad xaliyo mooyaan tagtay madaxweynaha inaan kaligii la kulmo jaranjarooyin badan baa loo maraya waad ogtahay wacyiga iska jira marka waan gaari waay